Uqaasha aqoon-yahanka siyaasiyiinta dhalinyarada iyo xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka Gabiley ayaa maanta shir jirayd oo ay ku qabteen magaalada Gabiley ee xarunta gobolka Gabiley ku taageeray go'aankii ka soo baxay xukuumadda iyo labada gol qaran kaasi oo ahaa in dib loo dhigo diiwaangelinta si looga qayb qaato gurmadka abaaraha ba'an ee ka jira Somaliland sidoo kale waxa ay dhaliilo ba'an u soo jeediyeen xisbi mucaaradka wadani mas'uuliyiintaasi oo arintaasi ka hadlayana waxa hadaladoodii kamid ahaa waxaan ku taageerinaa go'aankii madaxweynaha iyo golayaasha deegaanka ee golayaasha baarlamaanka iyo guurtiga go'aankaas wuxuu ahaa go'aan dhaxalka waxaan xaq u leeyahay madaxweynaha iyo golayaashu oo u dooranay inay eegaan dibta iyo hawsha taala dalka marka ay wax soo dhacaan taasi waa xeer dadkuna xeer buu kala socdaa nimada kursiga doonay waxaan leeyahay gabadh baa u baahatay inay wiil dhasho dabadeedna doorkii dhow baa maxaad dhalaysaa inan baan dhalayaa bay tiri inan bay dhashay haddana doorkii labaad baa maxaad dhalaysaa inan bay haddana dhashay waxa la yidhi kalgacaylo wiil laguma dhalo kulanti mooyaane kursiga laguma fuulo magaranaysaa orod iyo xiiq iyo orod laguma fuulo kulanti baase lagu fuulo waad ogtihiin siiraaya inta jeer ee uu soo laba jeer noqday kursigaas arrinta xisbiga wadani oo kale wallahi qof ummadda u naxaya amba naxdin ummadani ay ka haysaa inuu diiwaangelinku si qasbo ama ku tiigaan ma xisbiga wadani waxba ummadda kuma taraan kamana caawiyaan laakiin xukuumaddu way ka warhaysaa inkastay waajibkeedii tahay haddana waxaan odhan lahaa kuwaasna naxdin darrada meesha taalla iyo arxan xumada may ahayn maanta in laga qayliyo diiwaangelintuna waa waxay asxaabta qaranku wada leedahay oo aad idinku dantiina laakiin halka waxa ka muuqata nin kursi ku cararaya dad danka ma laha iyo cid dhimanaysa iyo cid abaar haysato duunyada way socotay dadkii baa imika madaxiisa bilaabay maadaama caynkaa tahay doorasho iyo commissioner qabtaan ma jiraayo marka waanu taageersanahay barnaamijka la soo jeediyay maroodse xadid dib loogu dhigay waxaanu commissionka iyo xukuumadda iyo cid kasta oo danaynaysa aan horta ka codsanayna maadaama ay abaaro adag oo qaylo dheer laydhaa ay nagu dhaceen in annagana hoos naloo eego oo goobaha marka la bixinayo muxuu ahaa hargeysa la bilaabayo kale in annagana goobadna loogu soo kordhiyo maadaama dadkayga ay abaaro aad iyo aad u riiqeen saddex qaybood marka laga dhigo laba qaybood ma isdiiwaangelinba waa arkaysan abaarihii guddidu ay qaybinaysa hoos ugu qaybinayeen waqooyi ilaa waxay istaba jiifaan weli qabri baxar bay istaba jiifaan ilaa halkaa foodii tukur bay istaba jiifaan gurmadkii u horreeyey guddida abaaruhu maalin dhaweyd bay gaadheen waxaan leenahay dadkii warduunyada dhammaanteed dadka ha la badbaadiyo dadka kursiga doonayaan dadka codka ka doonayaan ha badbaadiyaan wuu la ogyahay komishinku waad ogtihiin komishinku inay dadka kala badhu maqan yihiin ay soo noqonayaan marka roobku doo dadka kuwa dib loogu dhigay unba ka mid yihiin Sakariya Nuux Ibrahim telefishanka caalamiga Raya TV gobolka Gabiley